الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرين إلهي بقى مهلا هالكن السوق كاني كلن كا خيرجة إنكو كلا قاعدنا إنه راشين كا وسارد وحبرشة يد مليء فيها إنه كانين سنكو دور قبنا هالكن وحين نجوي مشري راشين كاسيوحة قمندي قلي هارود iyo boorashkeenu jecleenba riihii baa diiday wax kale iska daayo laakiin waa ilaahay mahadii maanta ceeshkii aynu cunaynay ayaa laynoogu bedelay wasaaradda waxbarashadu waxay go'aamisay maadaama oo iskuulladii fasax ku jiraan maadaama oo aynu bil rabadaan ku jirno in qof kasta arday kasta intii uu lahaa guriga uu qaato ardaygu maalintii wuxuu lahaa 150 gram oo raashinka cerealka ah midhaha kan la cunaya 150 gram haddaad ku dhufato 22 cisho waa 1 kiilo iyo wax yar bishii ardaygu wuxuu cunayay 10 kiilo 10 kiilo baa la doonayaa guriga inuu qaato ardayga oo guriga ku cuno oo guriga loogu kariyo ardaygii 10 waalidkii 10 arday dhalay inta raashin halkan u taaloon baa loogu dhufanaya way qof kasta waxaan doonaa xisaab inuu halkan kala baxo maamulaha inaynu dibna dooni mayno gudida inaynu dibna dooni mayno qof kasta wuxuu leeyahay buu leeyahay iskuulka waxaanu keenay raashindan sad afar nooc waa bariis saliid misir iyo kalluun afartaan nooc ayaynu keennay laakiin marka la karinayo halkan lagu karinayo intan wuu ka badan yahay intan waxaanu uga dhignay raashinka qalalan la qaadayo intaasun baa la qaadi karaa tamaandho cidima qaadi karto hilibna cidima qaadi karto wixii lagu casaynayna cidima qaadi karto marka kuwa weynu iska dayno qalaylkan u baynu ku kordhisanay raashinka qalalan imka aanu keennay waa afartaan nooc laakiin marka halkan lagu karinayo dhowr iyo 10 nooc buu noqonaya dhowr iyo 10 nooc baa iskuulka la keeni doona bilaha dambe bisha 7 wixii ka dambeeya dhowr iyo 10 nooc baa la keenaya iskuulka ardayda loogu karinaya maanta haddaba maxay noo yimi waxay noo yimi afartaan nooc halka ay noo yaala waa saliid iyo misir bariis iyo kalluun mid kasta inta iskuulka timi waan idin sheegay iskuulkan waxa yimi 280 kiilo oo bariisa 280 kiilo oo bariisa waxa yimi 416 kiilo oo saliida waxa yimi 416 kiilo oo misira waxa yimi 2160 xabbo oo kalluuna misla faanay haddaynu rogno gadbada iyo waxa mid kasta inta uu yahay baa loo qaybinaya bariiska 25 kiilo baynu u qaybinaynaa wuxuu noqonayaa 480 kiish kalluunkana wuxuu baynu qaybinaynaa 18 xabbo wuxuu noqonayaa 45 xabbo waan isla fahansanay taasi waa intii timi iskuulka ardaygii muxuu leeyahay bas isweydiina haddaba iskuulka waxa uu qornaa markii hore ardayda joogta iyo ardayda raashinka loo keenay way kala badan yihiin ardayda iskuulka joogta waa 242 ardayda iskuulka raashinka loogu talagalay ee loo keenay waxa weeyaan 208 markay haayeen ardayda 10 kiilo baa bariiska ku soo hagaagay imika oo ardayda iskuulka joogta tahay 242 ardaygiiba waxa ku soo hagaagaya 8 kiilo baladeeg qof kastooba kunto inta laga saxeexay ee halkan ku qorani waxa weeyaan 8 kiilo arday kasta waxa la siinayaa raashinka qalalan ee bariiska ah bishan waa bariis oo waynu arkayna labada bilood ee wada socda bariis baastuu noqon karaa qamandibuu noqon karaa shay isbedbedelaya ayuu noqonaya laakiin shaygii ugu badanayay maanta wuxuu ahaa bariiska haddaan baasta ka soo dhigi lahayn way ka yaraan lahaynoo 3 kiilo 4 kiilo bay noqon lahayn way ka qaalisantay baastadu marka waxaynu kala badbedelay waxa weeyaan waxaynu bariiska uga wada dhignay si uu bato daqiiq baa la yidhi daqiiqdii 3 kiilo bay idin noqonaysaa 4 kiilo marka bariiska waxaynu u doorbidnay uu badan yahay way qofkii wuxuu leeyahay 8 kiilo oo bariisa bal hadee qofkii 4 ciyaal dhalay
imise kiilo oo bariis buu yeelanayaa 2 kiilo oo bariis sidii ciyaal nin kastaaba u keenay ciyaalkiisa iskuulka ayaa loo kala raashin badanaya haddii aad hal arday keentay dee 8 kiilo bariis ma qaadanaysa haddii aad keentay 4 arday 2 kiilo baad qaadanaysa 10 arday haddaad keentay 80 kiilo baad qaadanaysa muxuu ku xidhan yahay raashinka lagu siinaya wuxuu ku xidhan yahay inta arday iskuulka ku dhigata inta dashay maaha waa inta iskuulka ku dhigata waayahay saliidii baa timi saliidii wuxuu leeyahay calaa qof 1 kiilo iyo badh litir iyo badh waay misirkii waa 1 kiilo iyo badhisna kalluunkii waa 8 xabo haddii uu qofku dhalay hal qof wixii ka badan waa loogu dhufanayaa halkan waxaynu ku 5 hadduu dhalay 40 xabo kalluun u qaadanaya waan isla fahansanay qof kasta wuxuu helay 24 buu qaadanaya wixii waajibaada ee kale ee laynooga baahan yahay labada gudoomiye inooga baxayna waynu ogeyn halkaynu joognay maanta halkaynu taaganay waa ilaahay mahadi waxaan u nimay anagu halka waxa weeyaan qof kasta inuu wixii helo qof kasta inuu wixii helo ayaan halka u nimay iskuulkani waxa weeyaan waa iskuulka labaad ee ugu lacag badan iskuulada gobolka iskuulka ugu badan waa iskuulka abdaal ku yaal ayaa ugu arday batay isagaana ugu raashin batay iskuulka labaad waxa weeyaan waa iskuulkan aynu joogno waa hudisa dee iskuulka galooley oo halkan agteena kama arday waxba arday ma dheerin haddana waynu ka lacag badanay nasiib bal calafkeeg $700 buu helay isagoo 180 arday dhigtaan idinkoo 240 arday idin dhigtaanna waxaad hesheen $4,300 marka gaab weyn baa idin dhaxeeya gaabka weyn iyo hantida la idin geliyay waxa la doonayaa in idinka muuqato inay ardaydii guriga wax ku bartaan inaad ardaydii wax guriga wax ugu dhigtaan ayaa la doonayaa raashinka waxa la inoo siinay sababta raashinka la inoo siiyay waxa weeyaan waa inaynu ardaydii iskuulka isfasaxii iskuulka ay ka galeen inaad guriga wax ugu dhigtaan baa la doonayaa guriga inay wax ku bartaan baa la doonayaa inaad u xaab tegine ardaydii aad wax u dhigtaan la doonayaa